dhegeystayaal gabyaagii caanka ahaa Salaan Carabi ayaa Allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii intay isqoonsadeen reerihii ay xidideen dhowr jeer u gabiyey. wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan isaguna aan iyaga ka mahad sheegan. maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan welinaha joogtee labadooda u garnaqi mayno oo keebaa eedar ahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno. markaan oo kalena waa markii ay ku mahmaahi jireen soomaalidii hore madka kalaaciye mid gardaranse allaa og. haddiise sayidka iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu siyaasad iyo hoggaaminta bulshada ku salaysnaa, isqoonsigii Salaan iyo xididkii dhex maray waxaa u sabab ahaa 3 arrimoodoo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida tiirdhexaad u ahaa, kuwaasoo kala ah yaradka, yarad sooranka iyo dhibaada. inkastoo sodog iyo seedi in loo gabiyaa aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin, haddana dhaxalka maanso ee uu Salaan ka tegey markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan ila foolaadsan tixihii alla ka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkii kula garamay ee kolkii daban la joogaba uu kaga eebseegan jiray. iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii Soomaaliyeed ee xididka loo tiriyey in kuwa ugu caansani ay yihiin isaga iyo qaar ka mida raggii uu la xidhiiday kuwii ay isu celiyeen. dhinaca kale markaan dib u eego taariikhda maansada Soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabiyidda aan indhaha u marmarin jirin waa Allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray Axmed Nuur Aadan Qoolaab oo Axmed Diris loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisii sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eragoo la baxay. si kastaba ha ahaatee tixaha gaagaaban ee ugu horeeya haddii laga reebo Salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay waa siday gabayadaasi ku bilowdeen. Salaan wuxuu guursaday gabar la odhan jiray Cawo Dhooble, siduu isagu gabayadiisa qaarkood ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo noolba lahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. isla reer Dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday. siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusubi xididka ayuu saaraa. ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihii aanay meesha u joogin. sidaas darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo hameen wixii uu sidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. ha yeeshee wax kastoo ku wacnaa iyo siduu Salaan tixdiisa ku sheegi doonaba taasi ma dhicin. dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu Salaan inta malaha gaajo dareemay ayada u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. isaga oo mareerkii hoohobtii iyo miracadkii guranaya ayaa waxaa arkay baa laleeyahay reerkii uu la xidhiiday dumaradii joogay qaarkood. waagii horena ragga waaweyni uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu milaysigu astaan u ahaa. qoladii inta geela laga dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtayoo tan iyo waaga ay wax tabcanayso midhaha quud ka dhigan jirtay, markaasoo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen. markaas baa waxaa la odhan jiray reer hebel waa cayr fara madow ama waa mooryaan fara madow. arrintaas iyada ah isaga oo Salaan maanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabiyo
ayuu madaxa is yidhi kollay gabay waa mahuraane qori xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa markaas buu ka gaarsiiyey tix gaabano uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran isla markaana aqal aroosa lagu sheegayo wuxuu yidhi laba lahinjiyaba waa hunguri kii horrayn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin hadab karuurkeeda guur uma hagaagine waxbaa loo hadoodile isla markiiba nin seediyaashii ka mid ahaa oo ducaale aadan qoolaab la odhan jiray ducaale dheerana ku magac dheera ayaa tixdaa saraan jawaab degdega ka celiyey wuxuu gabyaaga kula dacwiyey inuu sabir daran yahaye reerka uu midhismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta saraan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaa maalmo aan 10 dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobar la odhan jiray uu u qabay gabagabada taxdana wuxuu ducaale gabyaaga ugu ballan qaaday kollow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tibada muqmad iyo subag laga soo milaalay ay soo dhoobi doonaan loosa baahan yahay intaa ka hor inuu dulqaato wuxuu yidhi salaanow gob samir weynay waa saancad iyo ceebe 8 cisaba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyaddaa yeelato reer saldhigi waaye geel kale samcane waanigii soobil gowracaye waa soo sidnaa xerihii saabka loo taray seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmaahday saraan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuuba rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaa u kala baxaan oo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaale dheeritiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday dhammaadka tixdiisa ayuu saraan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi 3 jeer dulqaataye hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunno ee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saatay geerida dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaa waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo